ururka difaaca saxafiyiinta Soomaaliyeed SJS ayaa tababar 3 cisho soconayay usoo gabagabeeyay ku dhawaad 30 wariye ah oo ka shaqeeya qaybaha kala duwan ee warbaahinta. Tababarkan oo ay ka kaashadeen ururka difaaca saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya UNSOM ayaa waxaa looga hadlayay arrimo ku saabsan xorriyadda hadalka. Madasha lagu soo gabagabeeyay tababarkan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah agaasimayaasha xarumaha warbaahinta Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah agaasimayaasha warbaahinta madax banaan iyagoo la dardaarmay wariyaasha loo soo xiray tababarka. waa ii farxad inaad idinla joogo galabta oo arkayo wariyaal Soomaaliyeed oo la baray waxa ay xirfadooda qayb ka mid ah macnaha waxa weeyaan waxa leedin tababaray waxa waaye inaad runta sheegtaan oo runta ina ka gaban waana iska mabda asaasi ah oo warbaahintu leedahay in qofka uu san runta ka gaban culays badan uusan gelin inuu waxaan jirin bombooniyo marka waxa leen ka rabo waxa waa idinka wixii aad barateen 3 maalmood halkan ay joogteen qaadateen inaad dib noola soo laabataan xarumaha la timaadaan saaxiibada kale aan fursad u helin runtii fursad qaali way tan oo kale saaxiibada kale aan fursad qaaliga ah tan oo kale aan helina in adinku macallimiin u noqotaan oo aad tababartaan dib SJS waxa weeyaan ururka difaacayaasha warbaahinta Soomaaliyeed iyaguna aadan kaga madcelinaya barnaamijkan loo baahnaa arintan hadda ka hadlayso xuriyatul qowlku in xiligan oo aan isleeyahay ilan jiil kalaan mareynaaye waa loo baahnaay in hadda xiligan la qabto inta kadib waxaan rabaa inaan ku soo koobo waxa tiin wariyaal waxaan nahay wariyaal maanta isku shaqaanahay waxaan nahay inaan ogaano awoodda afraad ee uu dal leeyahay haddii markasta markaan anaga tawiinaha sameynayna iyo markaan isleenahay waxyaabaha aanan inta badan ama aan baranayba haddaan ku dabaqin shaqadeeni oo aan iska dhigno meel buugta wax ku barnaa meel dhignaa hadafka aan leenahay ku saabsan warbaahinta kama guul gaareyno sidoo kale waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah wariyaashii loo soo xiray tababarka ayagoo u mahad celiyay qabanqaabiyaasha tababarka ururka SJS sida fiican ee habsamada tababarkana oo siiyeen annagana aan uga faa'iideysano hadii Ilaahay yiraaho waxyaabihii aan ka kororsanay inaan bulshada oo la tagno amba dadka hadda saxafiyiinta annaga nagu xiran aan u faahfaahino aan u sheegno aan u tabino Ilaahay naga dhigo kuwa waanada iyo warka la siiyay iyo waqtiyada qaaliga hadda intaas aan ku dhumanay kuwa wax ka faa'iideysto kuna waan qaato inaan noqono ugu horeyntii Ilaahay baa mahadle si sharaf iyo qiimo la noogu soo dhameeyay 3 maalin ee halkan ku sugnayn intaas ka bacdi faa'iidada seminaarku ma yareen dabcan ani ciid ahaan wax badan baan ka bartay dhamaanteena wax badan baynu ka baranay wax nagu cusub iyo waxaan hore u naqay ugu dambeyn waxa tababarka si rasmi ah u soo xiray xogayaha SJS Cabdalla Muumin isagoo uu ku booriyay saxafiyiinta tababarka loo soo xiray inay ka faa'iideystaan waxyaabihii ay ku barteen inta uu soconayay tababarkan shaqada ku jirto dhamaantoodna waxaan rajeynayaa in aad sidii hadda u ballan qaadeen aad u fulin doontaan oo aad u isticmaali doontaan midda ugu muhiimsanna oo ah in aad u gudbisaan aqoonta aad barateen saaxiibadiin iyo walaalihiin kalena waxaan rajeynayaa inay fuli doonto 3 maalmood naguma filna in ka badan aan u baahannahay laakiin waxay bilow u tahay tababaro kale oo soo socda insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo intaan ka badan oo waliba si dhaqso leh haddii bisha January laga baxo bilaaban doona ayaan rajeynayaa intaas kadib waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto fursadda saaxiibada gobolada jooga ee wariyaasha ah mar walba iyaguna ayna weydiiyay tababarada kale gobolada inaan soo soconno oo aan gaari doono waxaan ku baaqayaa in la joojiyo tacadiyada suxufiyiinta loo geysto muqdisho haday tahay arrinta ka socota Hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa inay joojiyaan handadaadaha lagu hayo wariyaasha Jowhar iyo Beledweyne gaar ahaan kuwa mudaaharadada soo tabinayay sidoo kale dawladda federaalka waxaan u sheegay maadaama xilli doorasho lagu jiro inay access iyo fursad siiso wariyaasha oo ay u ogolaato inay arrimaha masiiriga ah ka soo warrami karaan su'aalana laga weydiin karo mas'uuliyiinta oo ay ugu horeeyaan kuwa amniga iyo kuwa siyaasadda waxaan ku baaqayaa in degdeg loo sii daayo wariye Kilwe Aadan oo axadii ilaa maanta aan hadlayno meel aan la ogeyn lagu hayo sifa aad u malays inay u dhiganto afduub magaalada Garowe waa in degdeg loo sii daayaa loona ogolaada familkiisa inuu dib ilo midoobo tababarka waa noo xiran yahay maalin wanaagsan oo maasantiin